الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد إخوتي في الإيمان، حلقتنا إن شاء الله تعالى وفردقني لبعضنا bal waxaan ku falanqeyn doonaa insha allahu tacaala dadkan mawliidka nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalka adag ku haya shubahaadka ay deliishadaan inuuna waxba ka jirin. waxaa shubahaadkeeda ka mid ahaa ay yidhaahdeen mawliidka nebiga sala allahu calayhi wasalam waa bidco, waana baatil, waxbana kama jiro. sababtuna waxa weeyaan bay yidhaahdeen qaabkan uu maanta loo qabto mawliidka waqtigii nebiga ma jirin sala allahu calayhi wasalam. aayad qur-aan ahoo sidaa sheegina ma jirto, xadiis nebi oo sidaa sheegina ma jiro, waqtigii waxyigu uu soo degayey ma jirin. marka hadduu khayr yahay nebi maxamed muxuu u garan waayey sala allahu calayhi wasalam? hadduu wanaag yahay aayad qur-aani maxay u sheegi weyday? xadiis nebi muxuu u sheegi waayey? shubhadoodaasi daahirka markaad eegto waa hadal iska qurux badan, laakiin marka qawaacidda sharciga loo bandhigo, marka qaab cilmiyeysan wax loo eego, hadal xaqiiqo ama cilmi ama qawaacid cilmi ah ku dhisan ma aha. waxaan arki doonaa halkan umuuro diinta ka mid aha oo ina aayad qur-aanihina toos u sheegin, xadiis nebina uuna toos u sheegin, waqtigii waxyigu uu soo degayeyna qaabkan aan u jirin. famathalan waqtigii nabiga calayhi salaatu llahi wasalaamu qur-aanka ninba meel bay taalay, ninba suurad buu xafidsanaa, ninba wuxuu hayo uu haystay. kitaab qur-aan aha oo 30 juz ah oo meel ku qoran oo meel isugu yaala muuna nabigu ka tagin calayhi salaatu llahi wasalaam. marka ma la oran karaa 30 juz ee qur-aankaah meeshan lay isugu keenay waa bidco? sababtu nabigu calayhi salaam ma sheegin, mana samaynin, aayad qur-aanihna ma sheegayso, xadiis nebina ma sheegayo. sidaa ma la oran karaa? waa haddii tiina hadda laydin raaco, anu malihi, laakiin tiina haddii laydin raaco eed leedihiin waxaan qur-aanna ma sheegin, xadiisna ma sheegin, nebi maxamed waqtigiisii ma jirin. haddii qur-aankan 30 juz ah ee meel sidaa isugu yaalayba waqtiga nebiga muuna jirin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. waxaan ognahay qur-aanka markuu soo degayey in fawaasil uuna lahayn waqtiga nebiga calayhi salaam. maanta qur-aanka la akhristo waxaad arkaysaa fawaasil baa ka buuxda, meel jiim baa ku qoran, meel salaa baa ku qoran, meel miim baa ku qoran, meel waqfi laazim baa ku qoran. calaamaadkan qur-aanka ka buuxaayey waqtiga nebiga mina jirin calayhi salaatu llahi wasalaamu. qoraalkan ka hadlayaa maxaa taana ka oranhaysaan? waqtigii nebiga calayhi salaam ma jirin in qur-aanka lagu qoro suurad kasta maki madani. inta badan musxafka waxaa ku yaala suurad kasta magaceeda, inay makiya tahay, inay madaniya tahay, inta aayadooday ka kooban tahay, intaasaa ku qoran. fa waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waqtigaasi ma jirin, aayad qur-aanina ma sheegayso, xadiisna ma sheegayo. bal taana nooga jawaabo oo miyaad oranhaysaan taasina waa bidco? waqtigii nebiga calayhi salaatu llahi wasalaamu qur-aanku uu soo degay oo kutaabta nabigu lahaa u qoraysay, dhibco qur-aanka mayna ku oolin. jiimka dhibic baa ku taalla, khada dhibic baa ku taalla, daalka dhibic baa lagu kala gartaa. dhibcahan qur-aanka ka buuxaayey waqtigii nebiga mayna jirin calayhi salaam. ma oran haysaan dhibcahan qur-aanka ka buuxayna waa bidco oo nabigu ma ogeynoo aayad qur-aanihi ma sheeginoo xadiis ma sheeginoo hadduu khayr yahay nabigaa garan lahaaye dhibcaha qur-aanka ka wala masaxa, fawaasisha ka masaxa? sidaana ma oran haysaan? ile qaacidadiina haddii la idin raaco taasina meeshii way iman haysaa. waxaan ognahay qur-aankan waqtigii nabiga calayhi salaam uu soo degayey xarakaad ma lahayn, dhibco waan sheegay xarakaadkan kordhow, hoos dhow,
laba kordhow laba godaal waktigii qur-aanka uu soo degayey mayna jirin waxaasi gadaal bay waxaana ka yimaadeen bal taana xukunkaad saaraysana waa maxay ma odhanaysaan dhibcahan qur-aankuna waa bidco xarakaadkan iyo kordho hoos dhaga waxaan o dhan waa bidco waktiga nabiga ma jirin calayhi salaatu ullahi wasalaamu bal sidaana ma ku talin haysaan bal taana jawaabtaad ka bixinaysaana waa maxay waxaan ognahay waktiga nabiga calayhi salaam masaajida jirtay ama qabaa'ilka dhexdooda ka jirtay ama masaajidkiisaba nabiga sala allahu alayhi wasalam qur-aan yaalla oo la akhristahay ma jirin laakiin maanta masaajidda qur-aan baa ka wala buuxa masaajid kasta waqtiga masaaxif baa ka buuxda qur-aanka waktiga nabiga dadka laabta ugu wala qornaa ma oran haysaan war waktigii nabigaba calayhi salaam qur-aan masaajidka yaallay ma jiro musxaf masaajidka yaallay ma jiro masaajida oo dhan masaaxifta jaalla ha laga ororiyo oo ha laga saaro ma oran haysaan taana idinkoo xujaysanaya waktiga nabiga ma jirin calayhi salaam aayad qur-aani ma sheegayso xadiis ma sheegayo hadduu khayr yahay nabiga garan lahaa calayhi salaam oo sidaas samayn lahaa bal taana iyadana ma ku talin haysaan waxaan ognahay salaadan taraawiixda in tukano weliba labada xaram hadda waa maka iyo madiine mithaal ahaan min waktigii cumar ibn khataab ilaa maantadaas 20 ragcadood baa lagu tukada waa maka iyo madiina muslimiinta oo dhanna waa meelay ka warhayaan 20kan iyo 3da witriga ah qaabkan loo tukado waxaan ognahay labada xaram 27 ramadaanka in qur-aanka la khatimo waxaan ognahay duco dheer oo ducaa khatm qur'aan la yiraahdo inuu imaamku duceeyo bal arrimahaas aayad qur'aan oo sidaa sheegi ama xadiis sidaa sheegi ma jira waqtiga nabiga sallallahu ma wajibta calayhi salaam masase ku dhiirinaysaan ma oranaysaan qaabkan taraawiixda maanta labada xaram looga tukado maka iyo madiina waa bidco ma oran haysaan oo taana iyadana sidaa ma xukumaysaan waxaan ognahay maanta waqtigan in salaada taraawiixda jamaacad lagu tukado ramadaanka markay tahay weliba 10ka dambe bidaat inta badanna qiyaamuleyl waxay yiraahdaan loo kaco iyadan jamaacad baa la isugu yimaada waa laba jamaacadood taraawiixda jamaacad baa lagu tukaday qiyaamuleylkiina taraawiixdii kadib qiyaamuleylkii taraawiixda kadib loo kacana iyadana jamaacad baa lagu tukaday bal qaabkaas waqtiga nabiga muu jiray calayhi salaam la isugu yimaado laba jamaacadood midna taraawiixda midna tahajjud la yiraahdo miyay jirtay waqtiga nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waxaan ognahay waqtigii nabiga iyo waqtigii saxaabada iyo waqtigii taabiciintaba magaalada nabiga calayhi salaam hal meel oo keliya jimcada lagu tukan jiray bal magaalooyinka saxaabada nabiga ay furtaan hal meel oo keliya jimcada lagu tukan jiray maanta waxaan ognahay in magaalo kasta intaasoo masjid jimcada lagaga tukado waqtigii nabiga ma jirin waqtiga nabiga calayhi salaam masaajidkiisa oo keliya jimcada lagu tukan jiray xataa qaryooyinka u dhow sida masjidkan masjidul quba dadkii deganaa iyo dadkii ka shisheeyey dadkii ka dhowaa eriyada wixii ka dhowaa oo dhan salaada maalinka masaajidka nabiga la isugu iman jiray nin kasta halkiisa muunan jimco ku tukan jirin bal masaajidan faraha badan ee maanta jimcooyinka lagu tukanhayo bal ka warama aayad quraanina ma sheegayso tacadudul jumac xadiis nabina ma sheegayo waqtigiisiina ma jirin bal xukunkeetaana saaraysaan bal noo sheega waxaan ognahay maanta culumta faraha badan funuunta fanu lqiraa'aat baa jira fanu tajwiid baa jira fanu lxadiis baa jira musطalax baa jira usuul lfiqi baa jira cilmu naxwa baa jira cilmu lcaqiida jira bal funuuntaas qaabqaabaysan waqtiga nabiga miyay jirtay aayad qur'aani miyay sheegaysaa oo cilmu lqiraa'aat gooni u sheegay cilmu lxadiisna gooni u sheegi bal qaabkan cilmigu maanta u qoran yahay waqtiga nabiga calayhi salaam ma u qornaa iska daa oo saxaabi cabdullahi bin camar soo dhowr waraaqood haystay iyo inuu hal saxaabi nabigu oo yiri hadalkaagii baan rasuulka ilaah xifdi kari waayo nabigu abu shaah u qora uu yiri iyo waxyaalo yar yar oo waqaa'ic aan si waaweyneyn kolka laga yimaado war musanafaadkan iyo funuuntan sidaa u qorani waqtigiisii qaabkan ma u jirtay haddaynan se u jirin xukunkaad saaraysaani waa maxay ilaa wax kasta waxaad leedihiin aayadi ma sheegayso xadiisi ma sheegayo nabigu ma samaynin hadduu khayr noqon lahaa isagaa samayn lahaa
bal cilmu lqiraa'aat ka warama fannigan dhane qaabka u dejisan cilmu lxadiis ka warama cilmu lmusطalax ka warama cilmu lcaqiida ka warama aayad qur'aan saa wax u sheegi ma jirtaa bal xataa musطalaxu lcaqiida oo fanigay aad u tajriidiyaan ah ay aad uga shaqeeyaan ah dadkan aan iminka xiwaarka la wadnaay bal musطalaxu lcaqiida laa munshaxaata fi liصطilaax ay oranin adiguba dadka kama aqbalaysidii fanu lcaqiida kelimada caqiida qur'aan sheegi ma aragtay xadiisa sheegi ma aragtay kelimatu caqiida inuu tawxiidku saddex u qeybsamo tawxiid اluluhiya tawxiid اrububiya tawxiid اlasmaa wasifaat aayad qur'aan oo taqsiimka sidaa u cadayn istinbaadaad iyo meelo kale ha galin aayad sidaa u cadayn miyaad haysaa waqtigii nabigiisa saama u jirta salى اllahu alayhi wasalam hadduuse khayr yahay nabigu muxuu dadka uga badin waayey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh masaajidda marka safafka la simayo khayrad baa jira liin masaajidda intooda badan liin baad ku arkaysa waqtigii nabiga ma jirin calayhi salaam aayad qur'aani may sheegaysa xadiis miyuu sheegaya hadduu khayr si yahay nabigu muxuu u garan waayey sala allahu alay wasalam muxuu la iman waayey mixraabyadan la sameeyo minaaradahan masaajidda la sameeyo makarafoonada lagu tukado waqtigii nabiga calayhi salaam miyay jirtay ila nabigu wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuni usalli maxaa sidaa un lagu daayo suu nabigu kaga tego wax maa lagu daayo mixraabyadan iyo makarafoonadan iyo minaaradahan iyo iyadana bal xukunkaad saaraysaan muxuu noqon hayaa aadaamka koobaad ee salaada jimcada aayad qur'aani miyay sheegaysa waqtigii nabiga miyuu jiray salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh masaajidda waxaan arknaa inta badan awqaadda salaada waraaqa lagu dhajiyaa internetka laga soo saaro saxaabada cadceedday eegi jireen nabigu cadceedduu eegi jiray maxaa loogu soconaya waxaan gidaarka ku dhajisan maqaamu ibraahim waqtigii nabiga calayhi salaatu ullahi wasalaam kacbadu ku dhajisnaa ayaa halka maanta uu yaallo geeyey ma nabigaa geeyey calayhi salam mise aayad qur'aanaha geysay bal taana iyadana nooga warrama waxaa markaa jirta waxyaalo badan oy tani ka mid tahay iminka aan sheegayo iyo waxyaalahan aan sheegayo uuna nabigu ogeyn salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh oo waqtigii saxaabadu ay la yimaadeen oo waxyaalo badan iminka sheegaya ah waxyaalo badanoo waxaa jira taabiciintii ay la yimaadeen sida qur-aankan la xarakayn iyo qur-aankan dhibcaha la wala saarayo taabiciintii baa la yimid saxaabadii mayna ogeyn waxyaalo badanoo maanta inaku samaynhaynaa jirta oo cibaado ah sida labadan jamaacadood ee ramadaanka la kala tukada taraawiixdii iyo tahajudka dambe taraawiixdii oo la tukaday iyo tahajudka jamaacad la isugu iman haya dambe waqti nabiga jirtay calayhi salaam innaka maanta la imanayna mise bidca taasina marka arrintan ahaa uun wax kasta una nabigu ogeyn calayhi salaam wax kasta una ayada qur'aaniha sheegaynin wax kasta una xadiisku oolin khayr ma ahan oo waa bidco wa kullu bidcatin dalaala dee bal waxaasoo dhan baa soo hoosgalaye seed wax u furdaaminhaysaano see dadka wax u fahansiinhaysaano see dadka ula imanhaysaan qawaacid iyo tacaariif maanica jaamica